maalmihii u dambeeyay waxa uu khilaaf xooggan ka taagnaa qabsoomidda koobkii kubadda cagta ee Burco Cup kaasoo 22kii bishii Diseembar si rasmi ah looga daafuray magaalada Burco kaasi oo ay ku ciyaari lahaayeen 22 kooxood oo ah naadiyada heerka koowaad ee ka dhisan gobolka Togdheer. Wareeggan ayaa waxa qaadacay 5 kooxood oo ka mid ah kooxihii wareeggan ciyaari lahaa. Qaadacada kooxahan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu istaagay gebi ahaanba tartankii horyaalka koobka Togdheer Cup. Maanta ayaa xarunta maamulka gobolka Togdheer mar kale dib loogu qabtay munaasabadda shaacinta xilliga la qabanayo koobka Burco Cup, balse waxaa ka dhex muuqday buuq iyo sawaxan ka dhashay tabashada qaar ka mid ah kooxaha ciyaartoyda gobolka Togdheer. Isku duubnaanta magaca uu lahaan jiray gobolka Togdheer ayaynu insha Allah ku wadaynaa wareegina inoo bilaabmi doona Khamiista haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan leeyahay wixii wada tashiya iyo wixii dacwada guddiga khaaska aynu sameeyno ayaan loo daba fadhiisanaya annagu wixii maamula ayuun baan leenahay gobolka Togdheer oo kooxaha inta laga joogan tartankaasina bilaamayo inaanu joogno horta maanta sharaf ay noo tahay kale wixii khilaafaad jira ilaa way sugnaayeen wixii khilaafaad jira waan dhamaysanana maanta idinka gacanta ku haya annagu taayadeen loo diray loo doortay intaan Hargeysa qabanay baan ilaa wasiir ilaa iyo madaxtooyo dhex galay garsoorkii baan idin keenay waxaan idin keenay TV-gii qaranka oo live waxaan idin keenay waxa la wixii direys iyo baahiya u baahantiin waxa idin ka dhimanna waan idin haynaa garsoor cadaalad oo nagu dhaarsataan oo isku dhaaranina waynu gelinaa waxaan ku shaacinaa ciyaarihii dhacay anu markii aanu nimaaniga Rashiid Farax idin sheegay waan idinka maqnaa markii ciyaaraha la joojiyay barasaabkii baa joojiyay codsi xaqiina ka yibi ayuu ahaa dabeetana markii la eego wala joojiyay imikana maantana iyadoo codsigii inii la tixgelinayo ayaa markii aniga Rashiid Farax wasiirkan la hadalay wasaaradii wasiirka xiriirka garsoor cid walba way runtii naga ajiibeen haddii ay magac yimaadana adinka keena haddii magac xumo timaadana adinka Togdheer u soo hoydo dhalinyaro waxaan leeyahay war magac xumada ka daaya magac u soo hooyay gobolkii Togdheer sumcadiisii iyo magaciisii iyo gobol isboortigiisii ma soo saarno diyaar ma u tihiin warwaan idin ducaynaynaa nin waliba inankiisu inuu guulaysto jecel yahay waxaan idin leeyahay inay keentaan Burco sidii ay ahaan jirtay baa la idinka baahan yahay guul way idin rajaynaynaa iyo isku duubnaan baanu idin rajaynaynaa iyo sumcad wanaagsan waxaan xaq u leeyahay oo gobolka xaq u leeyahay waan miiska la fariisanaya hadii madaxweyne tahay iyo hadii ay wasaaradda tahay laakiin idinka waxa la idinka rabaa ka dhalinyaro ahaan waxa la idinka rabaa adeer wax wanaagsan oo ixtiraam leh oo kala dambeyn leh xaqiiqdu waxay tahay hadaynu rabno inaan wax wada doonno oo waxayna ka maqanay wada doonno sifo sharciya waa inaan marno buuqna ku helimayno oona ku helimayno maxay tahay qaylana ku helimayno raganimana ku helimayno qabiil laandheernimana ku helimayno laakiin waxaanu ku helinaa burcanimo Togdheernimo ayaynu ku helinaa insha Allah taala geesta kale iyaguna waxa gebi ahaanba ku gacan sayray kooxihii hore u qaadacay wareeggan Burco Cup kuwaasoo ka koobnaa 5 kooxood oo aan munaasabadan saaka looga ogolaan inay cabashadooda goobta ka sheegtaan guud ahaanba shacabka gobolka Togdheer iyo sidoo kale dadka ka faalooda ciyaaraha ayaa si gaar ah isha ugu haya qabsoomidda koobka Burco Cup iyo khilaafka soo food saaray wasaaradda ciyaaraha gobolka iyo dhalinyarada sportska gobolka Togdheer. Cabdiqani Baafo, telefishinka caalamiga ah ee RTN magaalada Burco.